Bahja Abu Nur Xasan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab gaar ahaan xerada qaxootiga Xagardheere ayaa dhul gaaraya 50 mitir dherer iyo balac 40 mitir ula baxday waqaf dar Allah ah in laga dhiso masjid iyo madaaris diinta islaamka lagu fidiyo. Hooyo Bahja oo ah hooyo Soomaaliyeed oo horey usoo qayb qaadatay dhisidda diinta masjidyo iyo madaaris ayaa haatan dhulkan iyo waqafka ula baxday horeyna ugu dhistay masjid qol ah oo 7 mitir ah iyadoo baaxadda balooga bulshada ay qaadi weysane dhulkii ay lahayd ay ugu dartay. Bahja ummadda Soomaaliyeed ayay waxay ka codsanaysaa in si dar Allah ah loola dhiso masjidkan uu balooga ugu baahan yahay ayadoonan balooga uusan u dhaweyn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ani magacayga waxaa la dhahaa Bahja Abu Nur Xasan oo joogo xerada Xagardheer qaxootiga. waxaan meeshan ka sheegayaan ka cadeynayaa anigoo Bahja waxaan cadeynayaa in aan waqfay masaajid oo dhulkii aan deganaa qayb ka mid ah aan ka waqfay oo dhirirkiisa uu yahay ilaa 60 mitir balaciisuna uu yahay 50 mitir. masaajid yar oo 7 mitir ayaan ka dhisay, Ilaah baa mahad iska leh, iyo 7 mitir balbaladiisa oo dugsi ah. Maama Bahja haddii aan ahayn intaas waan ka badin waaye. balooga hadda aan deganahay qaryada oo qaybta aan ka deganahay masaajid kale horena uguma yaalin, kaas u baan ku bilaabanay. haddana waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta ah qayrka jecel ayaan waxaan ka codsanayaa in masaajidka uu yar yahay, jamaacada ay ku yar tahay. qayrkan hadda sida aan u bilaabay dadkii iga horeeyay ilaa saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaa dhammaan sidoo kale anaga inaan u taagnaano oo samafalkii aan isku taageerno. inta muslimiin ah oo khayrka baxsanayso, ninkii hooyadiisa dhimatay oo waqaf uu baxsanaya, ninkii aabihiisa dhinta oo waqaf uu baxsanaya, ninkii mutatabac oo ilaahay asiga hanti imaal siiyey oo khayraadka baxsanaya oo ilaahay dadku u tilmaamay inaan noqono ayaan rajaynaynaa. sababtoo nafsada waxaa la jeceshahay walaalkaa la jeclaa ayuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxaa nafsadiina la jeceshahay walaalkiina la jeclaada. maadaama masaajidka yaroo 7 mitir ah dhulkiisa baaxadda ilaa 60 dhirirkiisa uu yahay balaciisina 50 yahay oo aniga haween aan baxsaday dadka qayrka badan oo mutatabiiciinta sadaqada baxsanay, ilaahayna taasaan ugu yeerayaa waxay awoodaan inay ka dhistaan sifa ilaahay janno gurigi imaada beed ilaahay oo noogu dhiso in walbo muslimiin ah. meel hadda feeskiisii wixii kulli waa la sabrayaa u malaynaa meel oo di shabaq yaro aday ilaa dhowr 8 shabaq ayaan ku dhajiyo xabadii ay dhowr 10 iyo dhowr kun aan ka bixiyay. tiirashi waa la gubay, ilma yaryaraa gubeen. hadda feeski laamiyeri u baahan yahay mis haddii dhagax laga dhigaayo masaajidka waa hal qolo yaroo laamiyeri oo 7 mitir ah kaweenkiisa waa u baahannahay sida jamaacada oo muslimiinta tabliiqa jamaacada kale ay islaam markay ay nagu soo baxaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. ummadda muslimiinta islaamka meel kastoo joogteen gol dibad iyo dalba gabadhan ayaa dhulkaan la baxday inay masaajidka dhistay rabtaa. mid yaroo hor lagu sii meel gaar bay sii dhistay, marka dad bay gacan bay rabtaa. waa ogtiin masaajid qof keligii ma dhisi karo, ummadda islaamka dhan bay dhisaysaa. wixii dalka iyo dibadda joogo guri ilaahay waay, guri ilaahay ninkii ku dadaalo ka shaqeeyo ilaahay janno u ballan qaaday. marka ساسا إذا شوينا قصوا قيب قلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت مسلمين والسلام حيا سلام كدب بيشان قبربا إلى محلها يا الله بحضي بركان دوار الله بحضي مسايق عيار بستي دكسي عيار بستي بحوي إن وحي لو رسل لهاي وحي إلى محلها لو فرنجين لهاي مسلمين تكل إن شاء الله نقول نكي خير دونه إن قصوا تلقوا
oo u soo bixiyo ayaa loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wama anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wama anfaqatum wixii aad nafaqaysan aad bixisaan fa huwa yukhlifuhu ilaahay badalkiisa iyo siinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum khayrku dhaqtamo buu ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu leeyahay khayrka in loo dhaqtamo oo wax walba lala baxo meeshaan xoolo in lagu dhisan rabaa oo masaajid in lagu dhisan rabaa oo dugsi lagu dhisan rabaa oo alxamdulillah ilaahay ma leh khayrka lagu soo qeyb arista iyo masaajida oo lagu darsado sadaqada iyo faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka hadlaya Sheekh Saalax Suweyr Sabaax oo ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha qaxootiga Xagardheere Allah ta'ala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن شاء الله أمان وحمد السلام عليكم السلام كامل كستيجوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام الله سبحانه وتعالى وحليه وتعاونوا على البر والتقوى سواء كشرع واسكو كالمية على البر والتقوى خير كي يعصر إلى اسكو كالمية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكو عاوننا دنبي واحد قول بوحة يا اخواني دادك مسلمين وحان ان شاء الله إذن شيغيا المساجد كان ماشا عن جبجوبنا ومسجد ويا لما أردت أريد ما أردت حاجة ديرة حاجة قحوتي حاجة ديرة كويا لويه بلوغ يا كم ده يقول حيا المساجد كان هذا الشيء ما أردت الله مساجد كان صعب وإن شاء الله مساجد كان إلا للسوق لو إنه يوم مسجد واسع كل نقطة نقرأ ما أردت سوق كريجي زي كويا مسجد كيلومتر أو غيره هذا صعب وإن شاء الله كذا إن شاء الله مساجد كان صعب حيا إن شاء الله مساجد ناصر عبد الله جامع ناصر الكردي حريها قحوتيga Dadaab